asxaabta soo dhawaada maanta waxaan sameysanaynaa 3 cabitaan oo caafimaadka u fiican. haddana ma ogtihiin qaboobaha waxaa jira cabitaano loogu talagalay. annaga waxaa cabnaa shaah xaytaa wadnaha ku xanuujinaya. marka maanta waxaa idiin sameynaa 3 cabitaan jikadaada yaala caafimaadka u fiican. horta qabow hadduu sideedoo kale ku hayo kow soo qaado fiinuustaada. waxaa kaloo soo qaadataa shamac udgoon. jikada iyo guriga udgoon uu kaaga dhigayaa, kuleelna wuu ku siinayaa. marka waxaa soo qaadataa markaa shamacaaga shidatid. hadday waa jamce dadaa kuu imaanaya, cabitaanadan u samee, way kuu ducaynayaan intaa shaah siin lahayd. aan fideogeena gudagalno. bismillaah, allaahuma salli calaa sayidina maxamed. asxaabta waxa koobaad oo caafimaadka u fiican oo cabitaanka sameysanayna waa xulbada biyo yaraa 5 daqiiqo ku radine, waa ka daadine, waa dhaqe waxaa ka baxaya yelowga iyo maarta jaalaha. ayada dhan normal ay noqonay, kharaar badan ma noqonayso. dhabarka aaday ugu fiican tahay. hadda ka hor waa soo geliyay waxtarkeeda iyo cabitaankeeda, laakiin maanta tan kale waxyaabaha qaboobaha ku anfacaya ayay ka mid tahay. dadka lafaha iyo dhabarka xanuunayana way u fiican tahay. marka weelaa soo qaadane, biyaha ku shubeysa. qof walba wuu samaystaa, laakiin hal qaadaa ku daraaya. ani waxaan sameynaa 2 koob oo yaryara, marka wax badan buluqa ku siinin, qaraaray kaa noqonay. asxaabta aaday runtii caafimaadka ugu fiican tahay. tan kale qaada sokoraa ku daraa. sokorta caafimaadka uma fiicna, laakiin bahashan waa ku lablaboonay. hadaa malab ku dartay sokor ku dar, way qaraartay in yar. markay saas hadaa cunaysid 10 daqiiqa dabka u daynay. hadaa shaaheeda rabtid 5 daqiiqo bas. saasa waxaa ku haysataa cabitaan healthy, lafaha u fiican, qabowgana kaa celinayo oo aad iyo aad u wanaagsan. asxaabta runtii waa idinkula talina. ayadii miraheeda isku cunaysaa. hadaa rabtid cabitaankeeda kaliya cabi kartaa. hadaa rabtid caanaha ku darsanaysaa, khatar waaye. tan kale asxaabta biyaha ku radinaysa habeenkii subaxii. waxyaabaha wajiga cayiliya ayay ka mid tahay. bahashan aad ay caafimaadka ugu fiican tahay. saasa iyadoo hadda tii hore waa soo miirnay, tan iyo miraheeda waa isku cunay. dadka dhabarka laga hayo videoga like dhahaya, page-ka follow dhahaya asxaabta. okay, cabitaanka labaadaan sameysanaynaa. cabitaankan asagoo aan chocolate ku daray ayaan mar dhow soo geliyay channelka, page-ka ayaan ka wadaa. marka kan waxaa waaye waa kakaawe ama kaaka, waxaa u taqaanid. aad u fiican yahay hadday marti kuu imaato. cabitaankan wuu fiican yahay, qaboobaha loogu talagalay in cabitaankan cabtid. runtii aad u wanaagsan yahay. waxaa waaye saxaabta, waxaa loo yaqaano waraangada. cabitaanka adeegay ka dhigaysaa. marka cabitaankan waa wax easy ah, jikadaadu yaalaa. kaakaha waxaa soo gadanaysaa ama kakaawiga mid aan waxba lagu darin. asxaabta sokoraan ku daraaya cabitaankan. sokortana ha isku badinina, sokorta caafimaadka uma fiicna. kan laakiin waxaa soo gadataa mid oo khaama, mid aan waxba ku jirin. mid waxaa jira wax lagu dardaro. asxaabta geedkan aad iyo aad buu qumbuhu u fiican yahay. qumbaha udgoonna wuu ka dhigayaa, aadna nafaqo waa isaga dhan. markaa soo gadanaysid waxaa tiraahdaa midka oo kukuuska isi, mid shiidana jira, midka shiidana soo gadan, mid oo saa xoogaa kukuusan soo gadana. khatar macaanu ka dhigaya. cabitaankan waa cabitaan aada u fiican. waxaa soo qaadanaya litir biyaa, litir caanaha ama koob biyaa, koob caanaha ama caano kaliya hadaa caruur u sameynaysid. marka waa runtii asxaabta cabitaankan caanahana nooca hartaa ku sameysan kartaa. waqtiga qaboobaha aada ugu fiican yahay oo wuxuu ku siinayaa kuleel ku siinayaa. marka waana wax nafaqaa. saa marka usoo karo aad dabka ka qaaday, cabitaan macaana haysataa. dadka jamcada kusoo booqda ama caruurtoo kale u fiican yahay. jukulaatana ugu sii dar, khatar waaye. asxaabta waxaan rabaa inaan idiin sheego, maalinta talaadada waxaa soo geliyaa video, iyo maalinta jumcada ah. maalmaha labada maalmood cuntooyin aan soo geliyaa. cuntooyin la shuuteeyay aada u macaan, maadaama ramadaankii uu bilaabanayo ayaa insha allah bilaabaya. cabitaan kalaa noo soo socdee la socda. marka waxyaa noocyada cabitaanada ka heshaan iisoo sheega, videoga sii sheer gareeya. cabitaanka saddexaad asxaabta caanaha soo qaadanay. cabitaankan healthy waaye oo aada u fiican yahay. waa filfil. filfisha markaa waxaa ku daraya asxaabta dadka aan heli karinin huruuda oo freshka ah. huruudana soo qaadanay, laakiin nooc fiican inay tahay. wax yara oo fariya suula. ani hadda koob oo weyn ah karinaya, waa intaa yara ujeedaana ku daraya. 2 xabo heylaan ku daray, udgoonu ka dhigaya. cabitaankan malab waa ku darsan kartaa asaga. sokorta wax walba ma ku badinayo, adina ha isku badin. malabaa ku darsan kartaa, laakiin waa markaa soo karisi kadib. sanjabiil fresh hadaa haysatay, khatar. cabitaankan aada u fiican yahay oo hadda ka hor video aan soo geliyay waxtarkiisa ka fiirso.
dabkaa soo saaray asxaabta. cajab waaye runtii, waa nafaqo aad iyo aad caafimaadkana uu u fiican yahay asxaabta qaaliga ah. runtii waa iska miiraysaa, waa idinkula talinaa sidii wuxuu u dhadhamaya caanaha lo-da marka heelka lagu daro maarteen aada u macaan yahay. haddaa tahay dadka huruudda necab, huruudda aad ay caafimaadka ugu fiican tahay. walaalahayga waxaan idinka ilaabay xulbada gabadha uurka leh ma cabi karto, ilmaha halis ay gelisaa. sidoo kale acshaabta dhan uma fiicna hooyada waa uurka leh. asxaabta maalmaha waa idin sheegay cuntooyin waxaa bilaabaya oo macnaha aan idin sheegay. ramadaanka yaa soo dhow, ilaahay nabada nagu gaarsiiye. maanta waa jimce, waxaa badisaan salliga nabiga sallallahu calayhi wasalam. waxaan jeclaystay 3 cabitaan inaan idinla wadaago. fiidiyoyada noocyada aa ka heshaan ii sheega, commentiga iigu dhaafa, pageka follow dhahaya, channelkeena soo booqda asxaabta, subscribe dhahaya. hadda saasa waxaan ku haysanaa 3 cabitaan oo ku sharfaysa martay hadday kuu timaado, qofka kuu duceynayo oo wax nafaqo la siisay. hadda waa kaasa asxaabta, cabitaanada khatarta haysata. intaa ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ilaaway asxaabta, waxaa jira cabitaan malab la yiraahdo, malabka boqorada oo qaali ah. malabka maxaa lagu daraa wax anaga aan haysano. waxaa jirta malabka markay shinidu sameyso waxay sameysaa gows wax la yiraahdo jaallo ah. marka gowskaasay soo qaateen, malabkii bay ku dareen. waa wax wadankeena ka baxa, wadankeenana uu qani ku yahay, anagaa sameysan karna. marka wadani haddaan nahay, waxyaabaha wadankeena uu soo saara waa inaan sameysano, horumarka gaarsiino. ma aha inaa waxa dadka oo qaaliga ay waxeenina loo qurqurxiyo. saasna la socdo asxaabta qaaliga.